magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka Mudug waxa bilihii la soo dhaafay ku soo badanaya isticmaalka maandooriyaha taasoo ay walaac xoogan ka muujiyeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Mudug maandooriyaha ayaa qayb weyn ka qaata amni darro kasta taasoo waxyeello lagu geysto muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaana gobolka Mudug uu ka mid yahay gobolada bilihii la soo dhaafay dadka ku nool ay walaacyo xoogan ka muujinayeen maandooriyaha oo si isdaba joog ah ku soo galaya gobolka inkastoo laamaha ammaanka dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ay dadaal xoogan ku bixinayeen sidii looga hortagi lahaa maandooriyaha gobolka soo gala iyo sidoo kale soo qabashada dadka soo galaya gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya maandooriyaha ay walaac xoogan ka muujinayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed haddana dhibaatadu maandooriyaha waa mid wali taagan maayir ku-xigeenka degmada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug injineer Maxamed Cabdi Cilmi ayaa sheegay in maamulku la wareegi doono gurigii lagu helo maandooriye hawlgalkan maanta lagu soo afjaraya qamriga aad u jeedaan oo cadadkaas leh oo gobolkan ama degmada tan Gaalkacyo bilihii ugu dambeeyay dhibaatada aadka u baan ku hayay oo hadda falkii ugu dambeeyay 48 saac uu sii moog yahay in ilmo saqiira oo 9 sano jir ah nin cabsanay oo xabad madax kaga dhufto runtii waxay keentay in gobolkan ama degmada tani ay u adkeysan weydo oo tilaabo ku haboon laga qaado kooxaha caadaystay qamri yacabka ama daraagiskaas waxaanu leenahay anigoo ku hadlahaya afka degmada gurigii lagu qabto ee qamrigaas gudihiisa lagu qabto waa la wareegayaa albaabada la isku dhufanayaa maxkamadda hore laga abaarsiina meheradii lagu qabto waa la kadaalika qofkii lagu qabto oo degmadan Gaalkacyo ku sukan waa la kadaalika maxkamadda hore laga geeyna waxaanu leenahay hal laga waantoobo adduun iyo aakhiro nolol wax ay dan ugu jirta lama arko ilaahay baa nooga digay waxaad arkaysaan dhibaatada ay nagu reebayso maanta wax ka weyn oo naf in la gooyo oo maanta ka weyn ma jiraan nafti baa loo gooynayaa oo qofku markuu cabsan yahay wax alla waxa gacantiisa ka tagaya ma oga waxaanu leenahay arintaas bulshada reer Gaalkacyo ama gobolkan hal laga waantoobo awaamiir baana ka soo baxday sida aad maqlayseen xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida uu sheegay baanu annaguna ka degma ahaan ula qabnaa in tilaabo cad laga qaado meheradii ama gurigii ama shakhsigii lagu qabto laamaha amniga shaqadan wanaagsan ka qabtay degmadan Gaalkacyo ee soo qabtay waxaan aad u jeedaana aad iyo aad baad u mahadsantiin baan leenahay shaqada aad qabateen si laban laaba ka degma ahaanna waan ku garab istaagaynaa shacabkan diraynaa xaafadahan diraynaa bulshada qaybaheeda dhan baan hawlgelinaynaa qof kasta waxaan rabnaa meesha uu ku arka iyo cidda uu ku tuhmo intaba inuu soo wargeliyo oo si tilaabo cad looga qaado oo maanta kadib aysan deegaanka iyagu u noqon deegaan fisqi deegaan khamri deegaan halaysan waxaan leeyahay dhammaanteen aan wada istaagno inaanu xumaantaas iska wada suulino Dr. Daahir Soofe oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa ka waramaya saameynta maandooriyuhu ku leeyahay bulshada aad u mahadsantahay SCTV hawsha wanaagsan ee bulshada u haysiin run ahaantii gobolka magaalada Gaalkacyo qaasatan gobolka Mudug ayaamii dambe waxa ku soo batay maandooriyaha qaasatan qamriga oo aad iyo aad ugu soo batay dhibaatooyin badan bulshada gobolka ku haya dhanka caafimaadka iyo dhanka bulshada iyo dhanka amniga iyo dhan diiniyeedna ku ah xaalad liddi ah bulshada qaybaheeda kala duwanna ay saameyntiisa ay dareentay run ahaantii markii laga hadlayo qamrigu waa wax aad u ballaaran oo bini'aadanka saameyn weyn ku geysta ha noqoto dhan caafimaad ha noqoto dhanka amniga iyo kala dambeynta bulshada sababtoo ah wuxuu keenayaa qofka bini'aadanka waxa kaliya oo maaragtay ii sheeg uu wax ku maamulo waa xagga maskaxda waana maandooriye kow horta xagga maskaxda markuu qofku uu qamriga cabo wuxuu ka tagayaa awareness-kii bulsho ayuu ka baxayaa taasna waxay keenaysaa qadafiyo ku ah liddi bini'aadanka inuu ku keeno oo haddaba la dareemayo saameyntiisa xagga caafimaadna waa dareemi kartaa qamrigu waxyaalo uu qofka bini'aadanka ku keenay waxa kamid ah
sidaan sheegnay xagga maskaxiyan inuu dooriyo qofkii oo qof sarqaansan uu ka dhigo taasna ay keeni karto in xaalad caafimaad qofka ay soo wajahdo ha noqoto nadaafadii ha noqoto maaragtay controlkii qof bini'aadanimo ha noqoto diiniyan cibaadadii ay ku saameynayo ha noqoto maaragtay markuu qamriga cabo cudurro badan uu keenayo oo xagga beerka oo kale inuu ku keeni karo kansaro oo ka dhaca beerka kaga dhaco haddii muddo dheer isticmaalo taasna ay tahay waxyaalaha diinteena ay nooga mamnuucdaba dhibaatadaas iyo in ka badan uu noo keenayo waa dareemi kartaa cudurka ugu xun ee bini'aadan ku dhaca waa kansar qamriga cabana wuxuu ku keenayaa inuu beerkiisu uu isbedelo oo dhibaato weyn u geysto oo markaas ka bacdina uu develop gareeyo kansar inuu ku dhaco marka beerkuna waa halka kaliya xubinta kaliya oo bini'aadanka muhiimka u ah jirkiisa dhan wada muhiim yahay oo sunta ka saarta oo dheefshiidka ka qayb qaata taasna waxay keenaysaa qofkii inay xubnihiisa kansarkii dhowti uu jirkiisa kale ku faafo waxaa kaloo ku xiga ugu saameynta koobaad taas waa saameynta dambe uu keeni doono mustaqbalka uu ku keeni doono hadduu alkoholka ama qamriga uu sii isticmaalo laakiin midda degdega oo qofku isla markiiba uu maaragtay uu saameynayo kamid waxaa kamid ah maskaxda xagga maskaxda miyirkii uu ku kala garan lahaa wixii xun iyo wixii san inuu saameyn u geysanayo oo maankii uu doorinayo taasna waxay keenaysaa inuu qofkii uu geysto jireexooyin naftiisa uu ka bilaabo qofku waxa uu horeeya naftiisa waxa arkaysaa dadkii qamriga cabay oo maaragtay habeenkii isxabadaynaya jidkii baa laga mari la'ayo dadkii kale maaragtay ku dilaa ayagii baa isdilaya dhacdadii ugu dambeysay hadda waxaan maleynayaa 3 habeen ka hor cunug 12 jira ayaa qof dilay asoo la sheegay qofku uu qarreysnaa qaar ka tirsan waxgaradka iyo odayaasha ku nool gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed uga warramay dhibaatada maandooriyuhu ku leeyahay muwaadiniinta Soomaaliyeed iyagoo kaga mahad celiyay dawlad goboleedka Puntland iyo Galmudug sida ay dadaalo xooggan ugu bixinayaan ka hortagga waxayna ku tilmaameen in maandooriyaha gobolka badanaa soo gala uu masiibo qaran yahay qamri sida caanigeel loo gadayo oo gabadhii raali ka tahay oo habartii raali ka tahay oo caadiga lagu miisaayo qamriga haddii la rabo in la suuriyo dadka gada waa in shaqo laga qabtaa oo la abbaara taliyaha beerska taliyaha ku-xigeenka nin walbaba ilaahay baa laga cabsaa naftu mar bixilli badaad dadka in la qabto markii la qabto iyagu xoon la gooyo bay noqonaya waxaa soo haray bulshada war haddaad masiibo u aamusteen oo idinka mudaharaadin wallaahi bilaahi wallaahi meel xillay tagaysaa maalin kasta nin baa ku dhimanaya meel cidlaa 8 jir 7 jir 6 jir baa la dilaya gabar yar qudaar u dirsataa la dilaya maxaa lagu dilay nin cabtooda dilay cabtooda ruwaada la isku baabaashay waxaad yeelaysiin taliyaha booliska iyo taliyaha ku-xigeenka magaalada sharaf iyo karaam ay ku leeyihiin waa inay xaniyahooda intay fuulaan qamriga dadka keenaya ee shaqo ka qabta magaalada Gaalkacyo waxaynu ognahay in sanadihii u dambeeyay amni ahayd welina amni tahay yaantan waxayna ku soo badatay waxa la yiraahdo cabtooy magaaladii qaruurad baa la mari waayay magaaladii waxa weeye cabtooy baa ku soo badatay waxaan rabaa dadka shacabka iyo ciidamada iyo indheergaradka iyo waxgaradka oo dhan in arrinta wax laga qabto oo ma garanaysaa dadka laga wacyigeliyo especially dhalinyaro yaryar ayaa maaragtay hawshii ku jirta muqaadaraadka ku jirta waxaan rabnaa inaan maaragtay la hadalno dawladda Galmudug gaar ahaan maamulka gobolka Mudug in xaduudaha ay ka soo gasho gobolka ay kaga soo gasho in laga hortago halka lagu joojiyo anigoo ku hadlaya afka salaadiinta gobolka Mudug galabtana wakiil uga ah halka kan waxaanu diyaar u nahay inaanu ka hortagno waxa ma garanaysaa muqaadaraadka ah oo qamriga iyo ma garanaysaa xashiishada magaalada iyo gobolkaba la soo gelinayo inaanu si buuxda uga hortagno inaynu ka wacyigelino dadka iyaga inaynu u sheegno waxa kale ay xaraan tahay waxyeelo badan ay leedahay waan ku bogaadinayaa taliska guud ee gobolka Mudug iyo saraakiisha gobolka Mudug iyo culimada diinka iyo indheergaradka saakay hawsha ku dhaqaaqay burburinta qamriga iyo maxaan ku raada xashada la gubayay waa ku boorinayaa hawsha inay wax ka qabteen
waxaan leeyahay dadaalkiina iyo hawshiina si labanlaaba inta laga cirib jarayo muqaadaraadka iyo meelaha ay ka timidba marka waxaan leeyahay hawshaas hawl waajib ah oo aad qabateen weeye waana ku mahadsantihiin bulshada ku nool gobolka Mudug ayaa rumaysan in maandooriyaha bilihii la soo dhaafay si isdaba joog ah ku imaanayay gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya oo kaga yimaado dhinaca Itoobiya waxayna mas'uuliyadda dhabarka u saareen ganacsatada qaadka ka keena wadanka Itoobiya kuwaas oo gobolka soo galiya meesha Cali Xaashi warbaahinta qaranka Gaalkacyo.